kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada janaalkeena ka wararka aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo markaasi maanta galay maalintiisii labaad waxyaabaha looga hadlay iyo isfahamka qodobada qaarkood oo la gaaray sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa mas'uul ka tirsan dowladda federaalka oo shaaciyay xilliga la soo gabagabeynayo shirka golaha wadatashiga qaran barnaamijkeena ama janaalkeena ayaad ku daawan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona aan soo gudbin doona saaxiibayaal xog leeyahay ayaa sheegaysa in dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee leh markaasi fowda loo diidayo qaadashada baasaboorka Soomaaliya haddaba xog ku saabsan ayaa daawan doontaan sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa oo qayb ka noqon doona barnaamijkeena sidoo kalena ku daawan doontaan beel ka mid ah beelaha degan magaalada Muqdisho oo markaas ciidamadii ka soo horjeeday muddo kororsigii ee militariga ahaa u sameeyay munaasabad lagu maamuusay isla markaana lagu soo dhaweynayay ciidankaas si weyn loo taageeray soo gudbin doona beeshaas cidda ay tahay midowga Afrikana waxa uu ka hadlay go'aankii dowladda federaalka iyo soo kalantay iscasilaadii eegii midowga Afrika ee soo magacaabay Soomaaliya John Mahama oo iscasili wararkaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya caalamka ayaan ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe ku saaran gobolka furo una share garay saaxiibada meelkasta ay joogaan adigoo markaas kumatiga ilaaga inoo reebaya aad wad u mahadsantihiin waxaan ku bilaabaynaa shirka golaha wadatashiga qaran arrimaha doorashooyinka ayaa maanta wuxuu galay wajigiisii labaad ayadoona madaxda dhammaanba ay ka qayb galeen wasaare maxamed xuseen roble oo shir gudoominaya gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish waxaana looga hadlayay doorashada khilaafka taagan sidii loo xalin lahaa waxyaabaha ugu waaweyn ee isha lagu wada hadlay iyo xalka sida u socdo waxaa ka mid ah oo la doonayo in la xaliyo arrimaha ku aadan guddiga Soomaaliland arinta gobolka Gedo iyo ammaanka guud ee dalka cid sugaysa oo weli markaas heshiis buuxa aan laga gaarin hase yeeshee isfahamka ay qayb ka tahay in haatan warar hore ay sheegeen in la gaaray habeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macalimo ayaa sheegay in wajiga labaad uu soo gabagabay maanta isla markaana mas'uuliyiinta kulmay ee is-afgarad ay ka gaareen dhammaanba qodobada qaarkood iyo inuu ku soo ilaalay shirka mid nabadoon haddaba waxyaabaha la isweydiinaya waxaa ka mid ah xilliga la soo xirayo shirkaas maxaa ka jira in maalinta birta ah la soo gabagabeyn doono maxaase mucaaradku ay shaki ka qabaan ay tahay arrimaha doorashooyinka dalka haddaba wasiirka amniga ee Soomaaliya Xasan Xunduwe Jimcaale oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa shaaciyay xilliga lagu wado in la soo afmeero shirka qaran ee wadatashiga arrimaha doorashooyinka wasiirka ayaa sheegay in shirkan ay isku horfadhiyaan madaxda dowladda federaalka ay ku maamul goboleedka gobolka Banaadir aan lagu daahi doonin maadaama isfaham hordhac laga gaaray qodobo xasaasi ah oo ay ka dhawaajeen shirarkii markaas hore loogu soo gabagaboobay ama hore u soo ilaaday oo markaas fashil ku soo gabagaboobay wasiir Xunduwe Jimcaale waxa uu sheegay in la soo xiri doono maalinta birita ah oo ku beegan 20 bisha May isagoo hoosta ka xariiqay inay suuragal tahay in maalin iyo laba maalin ay ku darsato muddadaas taas oo ka dhigaysa in shirka uu soo afmeeri doono Isniinta ilaa Arbacada inta u dhaxaysa waxyaabaha qaar waa laga hadlay bilow wanaagsan ayuuna ku furmay rajada way wanaagsan tahay aad ayana loo wada sugayaa in shirkan uu noqdo kii miradhal lahaa isla markaana dalka uu horseedi lahaa doorasho lagu wada qanacsan yahay sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in arrimaha lagu hadlayo hore la iskugu meel dhigay iyadoona xilligan la isla meel dhigayo arrimaha taftirka u baahan isagoo meesha ka saaray wax dhibaato ama carqalada ay ka taagan tahay arrinta amniga oo sida weyn markaas ayadoo ay tahay muhiimadda koowaad ishana lagu wada hayo qaybihii hore ee channelkeena ka wararka ayaa daawanaya saaxiibayaal haddii aad nagu cusubtahay subscribe saaran gobolka furo una share garay saaxiibada meelkasta ay joogaan adigoo markaas kumatiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markan xog hoose oo aan helnay ayaa waxa ay tilmaamaysaa in dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho loo diiday qaadashada baasaboorka Soomaaliya kadib markii lagu amray inay iska soo jaraan timaha hore iyo gadaal oo kala dheer ama fowda ay u jaran tahay janaalka ka wararka ayaa ogaaday isla markaan la kulmay dhowr qof oo ka mid ah dhalinyarada Muqdisho ee loo diiday baasaboorka ilaa iyo iska jaraan fowda waxaana si isku mid ah noogu sheegay dhalinyarada aan la kulanay iyo kuwa la soo xiriiray ee shaqaalaha hooshaan wada gaar ahaan qolada qaada sawirada isla markaana xogta diiwaan gelisa ay ka diideen arrintaas caadiyan qofka qaadanaya baasaboorka Soomaaliya waa qasab in uu soo muuqdo wajiga ilaa dhigaha hase yeeshee in la jaro timaha ayaa ah dhaqan ku cusub magaalada Muqdisho dhinaca kale taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Cornel Kofi ayaa ka hadlay arrintan waxa uuna isagoo uu jawaabayo qof soo dhigay Facebook waxa uu ku yiri waarin cusub oo la yaab leh aniga oo ka tirsan xafiiska moogay ee faahfaahin naga sii sheekadan dad badan ayaa hadalkan taliyaha u qaatay messages waana
waxaana ka dhashay falcelin badan iyadoona inta badan dhalinyarada ka dhashay arrintaas ay isku mid ay ugu cabanayaan arrintan hayro aan la sameynay generaalka Colonel Kofi iyo saraakiisha kale ee hadda socdaalka ayaana weli helin si aan ugu helno faahfaahin arrintan ku saabsan oo aad u dheer maadaama xogta ay tahay xog xasaasi ah arrintuna ay tahay mid ku cusub dalka oo weli aan hore looga arkin kadib markii la yiri dhalinyarada Muqdisho oo kuwa aadka markaasi timaha u jarta fooda iyo dhinacyada kaleba aan isku saamka ahayn lagu yiri in ay jiraan dibna ay heli karaan baasaboorka taas oo ah dhaqan ku cusub magaalada Muqdisho qabiga dhexe ayaa daawanaysan fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe wasaara gabalka nafro una shir garay saaxiibada meel kasta joogan adigoo markaas ku matiga ilaaga inoo reebaya aad u mahadsantihiin markaana mid ka mid ah beelaha ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay munaasabad u sameeyeen ciidamadii militariga ay ka soo horjeestay mudakororsigii loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo degmada Daynila gobolka Banaadir waxaa lagu qabtay kulan loogu mahadcelinayay saraakiishii askartii iyo mas'uuliyiintii sida xoogga ugu hortimid mudakororsigii fashilmay ee uu dhawaan sameeyay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulankaas oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano odayaal dhaqan iyo saraakiil isku heeb ah ayaa waxa ay oo ka soo wajida beesha mursade ayaa waxa ay geesiyaal qaran lagu aqoonsaday ciidamadii badbaado qaran ee gudaha u soo galay caasimadda Muqdisho markii uu Farmaajo saxay 2 sano oo mudakororsi ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha Habiye nabadoon Maxamed Xasan Xaad gudoomiyaha degmada Daynile أبوكر جعفر ومحمد أبوكر جعفر سنتر عبد الدحلو اللبان مصطفى الدحلو اللبان كري وباش كتر سنة لأن كان قال كلن كامر كاس من دكرورسي لوجود دي إسلام كان سراكيش أسلوب ما علي ويعشان يسوع كان اللبان كتر سنة باش مرسل إسلام كان كلن كمهدعلين تقسمي أيا وحى كسر عليه إذا ما كاسي مجال المقدسو إذا ما ده بدبادة قرن أي سوين وكسر جسين مدكرسي هذا الدولة الفدرالية كيوسمين مدحوينها وقت يوصل مع محمد عبد الله فرماجو تاس أو دلك جلسين قال صدقان ودحية إذا ما كوت الدولة ده يبركع iyo boob lagu sameeyay dadka shacabka ee Muqdisho ku noolaa isla markaana iskaga barqaan qaarkood guriyihii ay ka deganayeen magaalada Muqdisho qaybihii gabagabada ayaan isa soo gaaray saaxiibayaal wararka ugu weyn arrimaha diblomaasiyadda caalamkan haddii aynu eegno madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inaysan wax iska bedelin Biden ayaa ka hadlay aqalka kadib markii heshiis xabad joojina ay gaareen Xamaas iyo Israa'iil kaas oo ka dambeeyay 12 maalmood oo gadaal ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof oo badankood ahaa shacab Falastiiniin oo ku sugan Gaza Biden ayaa hoos u dhigay fikradaha la xiriira in dagaalka Gaza uu khilaaf ka dhex abuuray xabsiga dimuqraadiga kadib markii tobaneeye ka mid ah ay Biden ku qalifeen inuu wax ay ugu yeeraan diblomaasiyadda ka haysta dhankaas guud ahaan waa naga inta daawadayaal wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka nabadgelyo